السلام عليكم ورحمة الله. قرشها بري أو عرفاء يطبن قضب بري ومالين وين ومالين تي عرفاء مالمها كتل معنيد ومالين كم إذا بلها حرمضة له ومالين كم إذا طبنكي مالمودة إلهي كل عرتي ومالين تي إلهي دين تندم يستري ومالين سون كيدا لقول دافيا لبصنا الدم بيقول ومالين توقب بدن إلهي أدومه سنارك حريو ومالين دعاء للدعاء استاك قيمة بدن تهي sanadka oo dhan ducaduna ay maqbuulo tahay. kolka aad berri u diyaar garoobayso intaas aynu soo sheegnay oo dhan ayaad niyadda ku haynaysaa wax kasta oo dhacana jaaliskaas iyo fursaddaas iyo kanshadaas ku soo martay waad ku fara adeygaysaa oo sinaba u oggolaan maysid inaad dayacdo. haddaba ka warrama haddii aynu qorsho kooban oo aynu maalintan weyn kaga faa'iidaysanayno wadaagno. inaad jaaniska iyo kanshada ku soo marta ka faa'iidaysaa waa mid ka mid a sifooyinka guusha. dadka guulaystaana waa kuwa fursadda aan dayicin adduun iyo aakhiraba. qodobadan soo socda aynu wadaagno. 1. carafa waxa ay ka bilaabmaysaa caawa kolka cadceeddu dhacdo. salaada maqrib laga bilaabo ilaa berri cadceeddu ay ka dhacayso waa carafa. daqiiqad kasta waa dahab. kolkaa isla caawa sii bilow waxqabadka salaada dikriga iyo ducada oo ha sugin inta waagu baryayo. 2. caawa hore u seexo si aad cibaadada berrito awood ugu heshid. ugu dambayn 10 habeennimo tusaale ahaan haddii aad geeska afrika joogto iska seexo. 3. saacadda ku buuxso saacad ama badh ka hor salaada subax. tuko 2 ragcadood oo salaatuleyl ah, 1 ragcad oo witir ahna ku soo xidh. 4. suxuuro oo soo niyeyso eedaanka salaada subax ka hor. 5. salaada subax masjidka ku tuko. 2 ragcadood ee sunnahee ka horreeyeyna tuko. ragga gaar ahaan, habluhuna intaa inteeda guriga ayay ku samaynayaan. 6. kobtaa aad ku tukatay muddo saacad ah iskaga dikri inta cadceeddu soo baxayso. kadibna tuko 2 ragcadood si aad u hesho ajarka cimro dhammaystiran. yar seexo haddii aad dareento inaad u baahan tahay. haddii kale dadaalka wad adigoo maalintaada weyn ee carafaa daqiiqad kasta oo ka mida ku buuxinaya xuska ilaahay. xuska ugu qaalisan ee maalintani sida uu nebigu sheegay waa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. ku buuxi qur-aan aad akhrido, salaad aad tukato, sadaqa aad bixiso, samafal kaloo aad samayso, qaraabada oo aad xidhiidhiso, wax allaaliya wixii jaanisku kugu saamaxo. 8. salaada casar kadib wixii loo gaadho u soo gacan bax duco oo gacmaha kor u taag. ilaahay weydiiso wax kasta oo laabtaada ku jira adduun iyo aakhiro. ha ka daalin ee ku celceli inta qorraxdu ka dhacayso. maalintani waa maalin duco. nafta, ehelka, asxaabta, dalka iyo islaamkaba ducada ku dar. 9. kolka salaada maqrib la eedaamo afur oo xuska ilaahay carabkaagu ha ka qoyanaado. qodobka ugu dambeeya waxa ugu muhiimsan ee qofka muslimka ahi maalintan uu kaga faa'iidaysanaya wixii ilaahay ku faral yeelay salaadaha faralka ah ee maalintaas gaadh ka hay oo yaani kaa dayacmin. sunnayaashana raaci. ilaahay maalintan weyn acmaasha haynaga aqbalo.